halkaan number maxaa ka aragtaa meesha madow number ayaa ku yaalo geeskan ka bilaaba ilaa geeskaas mar walbo indhahaaga awood u leeyihiin inaad numberka wada sheegtid waa mar walbo iftiinka indhahaaga aad u badan yihiin ama aad kala saari kartid meel iftiin ku gaaban yahay iyo meel kala dheer awood badan u leedahay inaad kala saartid waxaan bilaabaa inaan numberka geeskan ka bilaabo akhriskiisa ilaa inta aan gaarsiiyo adigana inta aan sheegin ka hor isku day inaad sheegtid hadda tan waa bilaabayaa numberka koowaad aragtid muxuu noqon doonaa talow hadda ayaan bilaabayaa kow numberka aan ka arko waxaa waaye 3 numberka ku xiga waa 4 numberka ku xiga waa 5 numberka ku xiga waa 2 numberka ku xiga waa 8 numberka ku xiga waa 3 numberka ugu dambeeyana waa 9 hayma wada sheegtay mise qaara ka hoos bax muuqaalka marka ugu horeyso ku soo gaar ayaa la qiimeynayaa kaliya mar labaad mar saddexaad ku ceshansid markaas lama qiimeynayo si fiican u fiiri mirahan waa miro qaxwo waay ama miro kafay midka u taqaanid mirahan ma waxa u aragtaa kaliya inay miro qaxwo yihiin mise waxa ka dhax aragtaa madax bin aadan mise madax nin si fiican u fiiri ilaa 5 sakan ku siinaya 1 2 3 4 5 haddii 3 sakan wax ka yar madaxa ninkan oo miraha dhexdiisa ka soo dhex muuqda hadii aad ku aragtay qaybta maskaxdaada midig ee shaqadeedu hal abuurka waa active oo misaad u shaqeynaysa runta shay hadii arag intaan ku tusin ka hor madaxaas qaybta kumadka isku muuji si hal abuurka dadka kaga faa'iideystaan wax kala taaniyo su'aal ayaan ka weydiinayaa sawirkan su'aasha jawaabteeda laba mid ayaa noqonaysa labaas mid ayaa kala dooran doontiin sawirkan sida u jeedin leeman waxa jirta meel yar isugu imaanayaan dhibco cad iyo dhibco madow labada inaad ka aragtaa laga yaabaa marka waxa rabaa inaan idin weydiiyo koow meeqa dhibic oo madow ayaa ka aragtaa laba mid aad kala dooranayso waxay tahay koow kulli dhibcaha cadcadaan waay wax madow kuma jiro mid labaad aad dooranayso waxay tahay dhibco yar ayaa jiro ilaa 10 xabo oo madow ayaa ku dhex jiro sawirkan korkay ka muuqdo si fiican u fiiri haddii si taxaddar leh u fiirisid waxa ka dhex arki doontaa bahalkaas magaciisa af Soomaaliga loogu yaqaan haddii af Soomaali buuxa yahay qaybta comment ayaa noogu sheegi doontaa laakiin ma ahan midaas mid inaan ku tusiyo aan rabo sawirka markaas si fiican u fiiriso bahal ka dhex aragtid bahalkaas haddii aadna si fiican u fiirisid oo indhaha ku sii fiirisid sawirka wuu lumi doonaa oo bahalka ma sii arki doontid sababta keenaysan waxay tahay xilliga maskaxda sawirka ay fasirayso iyo sawirka saxda information ka soo baxay is waafaqaynin midaasna waxaa loo yaqaanaa qaladaadka aragga ka dhaco oo rabta maskaxda inay u qaban qaladkeeda maskaxdana ay leedahay iga qalay waa qaldan tahay sawirkan korkay ka muuqdo mid waxa ku jira bahalada ka yara duwan ama kooyto ku ah meesha indhaha sida aragtida gorgorka ma awood mu leedahay inaad kala dhex baxdo midkaas markaan ilaa 10 aan ku tirnaa isku day inta tirada ku tirnaa inaad kala soo dhex baxdid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yaa aragiisa wax kala ahaa oo midkaas aan calaamadeeyay indhihiisa ay soo qabteen leemankan jiifka ama leeman toos jiif ah oo isgarab yaala mise qalqalooc ayaa ku jiro si fiican u fiirso oo taleefanka qalqalooci waxa arki doontaa in uu si toos ah leeman oo qalqalooc ku jirno yihiin laakiin adiga u aragtid inay qalqaloocan yihiin waxa u malaynaysaa wax shay kaaga dhigay in ay qalqaloocan yihiin haddii shak kaaga jiro oo kalaadina si fiican u aragtid tijaabada iska qaad gacantaada bidix ishaada bidix saar kadib meesha dhexe wareega haddii aad number ka dhex aragtid ii sheeg midda waa midda koowaad number haddii ka aragtid ii sheeg midda waa midda labaad fiiri si fiican fiiri haddii number ka dhex aragtid numberkay tahay qaybta comment igu qor kanna waa midka saddexaad kanna waa midka afaraad ugu dambeysna midka haddii number ka dhex aragtid ii soo isha kale haddana iska xir ee muuqaalka soo cisho ee sidoo kale samee